وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. qof kasta wuxuu raadiyaa nolol fiican, qof kasta wuxuu jecelyahay xayaato saciida ah, qof walbana wuxuu jecelyahay inuu farxad iyo wanaag ku noolaado adduunka intuu joogo. laakiin sida loo kala raadiyaa kala duwan. qaarna waxay farxadda u maleeyaan dhinac, dadna way fahmeenoo ilaahay intuu fahamsiiyey yaa waxay garteen xayaatada saciidada ah ee dayibkaee farxadda leh meeshay markaa ku jirto. xayaato fiican iyo xayaato hagaagsan iyo xayaato farxad leh qofkuu ilaahay siiyo, weliba midda diintu ay tilmaantay khayr wanaag buu leeyahay, sharafna warkaa waa gaaray. haddaan kala fiirna xayaato saciidaa maxaa loola jeedaa? waxaa laga wadaa sideeda guud ahaan marka la fiiriyo waasaan annagu u naqaano, qof kasta oo wiil ah inuu helo gabarta uu jecel yahay waa ku farxa. gabar walbana inay hesho wiilkii ay jeceshahay waa farxadda koowaad. midda labaad, gurigii la degi lahaa in la helo, taa waa farxaddii labaad. midda saddexaad waxay noqonaysaa mar allaala marka meeshaa la helo intaa, ninku inuu helo hanti ku filan iyo xoolo ku filan oo gabadhaan hadday dhahday qaylisaba afka loo geliyo say markaa u aamusto. waa mid kale ayadana kasii gudub wax meel u yaala oo hanti ah, taa ayadana waa farxad kale oo aan farxadda u naqaano. haddii gaari uu kusii darsado, owlaad inuu ilaahay ka siiyo subxaana wa tacaala, intaasaa dadka gobolka mida farxaddooda ku eg tahay. dadka gobolka mida farxaddooda waa intaa. zuyina linnaas xubu shahawaat min annisaa waalbaniin waalqanaatiir. sii wad aayadda waxa ugu horeeya ilaah tilmaamay muxuu yahay? waa waxaan hadda tilmaanay, iyaduna inay kan doorato, asagana inuu tan doorto. macnaha zuyina linnaas xubu shahawaat min annisaa oo dumarkaa buu dhahayla subxaana wa tacaala. taasaa ilaahay tilmaamay. suu u sii waday, doolarkii waa la sheegay, baabuurtii waa la sheegay, dahabkii waa la sheegay, owlaaddii qur-aanka wuu ku sheegay ilaahay. laakiin intaasoo dhan ma ahan buu dhahay ilaahay ilaa nolosha adduunka raaxadeeda maahane. wallaahu cindahu xusnu ma'aab. ilaahay xaggiisa marjic fiican baa ahaaday. xayaatada dayibkaa gadaal laga tilmaamay. marka xayaatada runta ah ee saxiixdaa la tilmaamay. war qofku maanta hadduu hanti raadiyo uusan ilaahay aqoonin, hadduu maanta gabar raadiyo sida loo dhaqa uusan aqoonin, haddii ciyaal uu raadiyo loo dhalo sida loo koriyo loo barbaariyana uusan aqoonin, xoolo iyo hanti haddii uu raadiyo la siiyo sida sakada looga bixi uusan aqoonin, ilaahay intaa wuxuu dadaal dhigay. waxaa ilaahay agtiisa ahaaday marjickan u fiican. xayaato ugu xun, xayaatatan u liidata, xayaatada xayaatal kalbi lagu magacaabo waa middaa maanta ku noolnahay, waana middaa maanta raadinayno in badan oo naga mid ah. ilaahi subxaana wa tacaala aadam iyo xaawo markuu soo dejiyey ee la yidhi hoobta dardaaran baa la soo siiyey, baxa baa la yidhi oo taga oo waxaad u hoobataan adduunka, ogaada waxaa idiin imaan doona hanuun, faman tabica hudaaya falaa yadilu walaa yashqa. qofkii hanuunkayga raaca, kitaabka munazal ka raaca, aayaadka alla ku dhaqma, mana dhumaayo mana baadiyoobaayo. muxuu ku noolyahay macnaha xayaato saciida ah, xayaato fiican, xayaato qurux badan. meesha maxaa laga bixiyey? waxaa laga bixiyey hantida iyo waxyaabaha aan raadinayno inay ayagu yihiin waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala uusan ku tilmaamin inay xayaato tayiba tahay. qofkii hanuunkayga raaca, naag raadso, adduunka u shaqayso, waxaad doonto khayr ah raadi,
dembi ma laha, dhib ma laha, laakiin hanuunka ilaahay raac, ilaahay amarkiisa ku soco. xayaatada ugu fiican waa ka. xayaatada ugu fiican ma aha in laiswaalo, ma aha hanti xoog laguma keeno, orod iyo qadadac laguma keeno, saanay ahayd iyo intay ka dhacdii tuuganimo laguma keeno. waxa xayaato fiican lagu helo waa xayaatada ilaahay subxaana wa tacaala aad ku caabudo. wax yar oo aad hesho yaa kaaga fiican. nebi shucayb muxuu ku dhahay qoomkiisa, baqiyatullah khayr. wax yaroo rabbi idin baaqi yeelo yaa idinkaga khayr badan, taasaa idin fiican. xabad rooti ah, wax yar oo aad hesho, adi iyo xaaskaaga, ilmahaaga farxad baad ku noolaanaysaan. dadka dhibka laga sheegto waa dadka hantiilayaasha ah. dumarku waxay ka cabaadaan oy in badan ka ashtakoodaan waa ayaga. waa yimid safar buu aada, haddana waa yimid lacag buu raadiyaa, waa yimid meel bay ka dhacday, waa yimid winta uu la jooga ciyaalkiisaa qalla ah oo aad iyo aad u yar. miskiin suuqaa ka xamaasha, in yar ilaahay soo siiya subxaana wa tacaala, farxad iyo rayraynay casho ugu samaysa xaaskiisa. inta cisho soo tukado, ayaduna cishihii ay tukatay, ilaahay ay baryaysa subxaana wa tacaala, uu albaabka fura ku soo furaa. beri wuxuu cuna ma haysto, waa wuxuu ilaahay siin doono subxaana wa tacaala, waana ku qanacsan yahay. qanac buu ku qabaa, qalbiga ugama jiro orod, tahriib aad, naftaada halaag, wax badan soo hel. aawa dadkii wax badan soo helaya, aawa dadkii baxee badda isu daadiyey. intay wax badan hela lahaayeen baa ii kala helay, intay wax badan khatada dhahay baa bahal qabsaday. marka dhibaatada taala waa xayaato saciida ma aha. waa la walwala maantao dhan, maxaa la siiyaa, maxaa la cunaa, maxaa saa noqotay. waxaaba naga maqan qanaaca wax lagu magacaabo, waxaa naga maqan ilaahay oo lagu kalsoonaado subxaana wa tacaala. saa darteed buu gurigiisa galaa, wuxuu casheeyaa cashada duco qabtadu ay samaysay. haddii witri la tukadayna waa la tukaday, haddii kale markaasaa la tukadaa. makaanu jiifkaa la aadaa, rabbi ayadoo la xusaa la seexdaa. wax allaala wixii raaxo ah ee rabbi ugu talagalaa la gutaa. salaada subax intaan la gaarinaa lasoo toosaa, kadib baa la qubaystaa, kadib baa ilaahay loo istaagaa. howl maalmeedkiia meesha laga bilaabaa. awalkii lacagta lahaa, ma maqasheen qisadii labadii cid ee deriska ahaa, kii hantiila iyo kuwii fuqarada ahaa. kuwa fuqarada waa nin iyo naag isqaba, subaxii waxay soo helaan bay habeenka dabka ku shitaan. sheekada ka dhacaysa ninkii naagtiisa kaalay arag, mararka gobolkada qosolkito kasoo fagtaa dirishada laga maqlaa. aawa kii hantiilaha ahaa, naagto iska daa assalaamu calaykum inuu dhaho, mar gobolkinu hilmaamaya, waa xisaab xir buu ku jiraa. markab baa soo socda, maanta muxuu noqday? wixii uu rabay maanta lama gedin. 1,000 baa la gedi jiray, 500 baa la gaday. asagoo dhan wuxuu ku jiraa murug, wuxuu ku jiraa tii, wuxuu ku jiraa wareer. islaantii way qaraad, islaantii waa yaaban tahay, waxay ka maseeraysaa qosolka guriga ka soo baxaya. xayaata saciiday ku jiraan, xayaata nolol fiican bay ku jiraan. waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan dankan. nolol ciriiri bay ku jirtaa, waayo ma tukado. wuxuu mar walba kor fadhiyaa xisaabta waxa ay tahay. wuxuu hami ku jiraa milyan baad faa'iiday, sanadka dambe maxaad faa'iidi doontaa, macnaha sanad kale maxaa faa'iidi doonta. inta lagu jiro yaa la qabtaa, godka la geliyaa. xayaata saciida ma aha. wuxuu ku jiraa kadeed, wuxuu ku jiraa dhibaato, wuxuu ku jiraa rafaad. miskiinta way la rafaadsan tahay ayadana, laakiin miskiinkan xamaalatada ah ee suuqa ka xamaasha, ee inta yar soo qaata, ilaahay qaniica u geliyey, iyo ayadii dharka ciidda way kaga fiican tahay, salaada way kaga horaysaa, ila wax mashquulinayo ma laha. farxad bay ku jiraan, waa lays soo raacaa taraawiixda, waa laysla noqdaa. kanna shir buu ku jiraa, waxaa laga hadlayaa dhaqaalaha. shir buu ku jiraa, waxaa laga hadlayaa sicib jabka. shir buu ku jiraa, waxaa laga hadlayaa suuqoo lacag lagu kordhiyey. ayadoo dhanba waa kadeed iyo rafaad. goormee taraawiix loo kaxeeyaa, goormee qiyaamuleyl la geeyaa, goormee la waxayna. idan walaale xayaata saciida saan u naqaana ma aha. waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan dankan wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa. indha la-aanaa la keenaa maalinta qiyaamo. waa mutaystay, waayo diintuu ka arag la-aaday, diintii buu arki waayey. xayaatada saciidada wuxuu arkay xayaato xoolo keliya la helo. war qof kasta qof kale intuu ka hanti badan yahay waa kay ajir yar yahay.
qof kasta qof kale intuu ka xoolo yar yahay rabbina uga dhow yahay waa uga ajir badan yahay. rasuulku wuxuu yidhi al-aktharuun hum al-aqaluun yowma alqiyaama. qof kasta qofka kale intuu ka xoolo badan yahay waa ka ajriya maalinta qiyaamo. ilaa man qaala haakada wahaakada wahaakada, nin kale firdhiyey maahane. hadday ku soo gasho waa la kala daadiyaa. sabta aakhira lagu dhistaa, jannada guri loogu dhistaa. tii adduunkan dhisanayna waa dhisanan, way soo dumaan qaarkood biyaa soo galay, qaarkood sanad ma gaaraan, qaarkood canshuurta in la bixi waana la kala wareegaa. haddaan laakiin dhisan lahayn tan allaagtiisa taala khayr bay ahaan lahayd. ninaa dirhamkiisa daar janna ku iibsadaa, ninaa xoolihiisa daar aakhira ku iibsadaa, ninaa hantidiisa ku ribxay. intaa muxuu u yeelayaa saciida? wuxuu rabaa nolol fiican inuu ku noolaado. war cayshiyaa ka nolol fiicnaa, gurigeeda faynuustaa ka damaaya, nal 4 ayee qol walba nala ku jira, fadhiga 3 baa saa ugu tixan, qolka jiifkii ka fadhiga iska badaala, mid cagaar iyo mid jaale, faynuustaa ka damaysa radiyallahu canha. ilaa waad aragteen heerka ay gaartay. xayaata saciiday ku nooshahay, xayaato fiican bay ku nooshahay. maanta haddaa ka layga bedelin, haddaa ka lee yeelin, haddaa saa i yeelin, yaa gurigiinu ku damaa. gurigu wuxuu ku damaa daahan gaduudka iga bedel, cagaar iga dhig. ka warrama awa xayaata saciida marka naag 24 saac guduudi cagaarley ku mashquulsan oo mid jaale iyo mid rabta roogan ha layga qaado. war rooga waa ka tegaysaa, kan ha layga bedelo. roog maba qabin ba Aisha radiyallahu anha. waxay ku siixanaysaa liif baa la geliyey, si quraanku ay mutaqaana xadiisu ku tilmaantay. joodariga ay ku jiifto liifka waa taqaani, waa qumbaha geedka la yiraahdo, kaasa caloosha uga jira. salaataad ku seexan la adahay maanta oo sanad walba haysata layga bedelo. xayaata saciida ma aha. war xayaatada tayyibka walaalayaal waa qanaaco qofka inuu helo. rasuulka sallallahu alayhi wasallam Abu Hurayra wuxuu kula dardaarmay 5 waxyaabood. maxaa ka mid ahaa wardi bima qasama Allahu laka takun aghna an-nas. raali kunna wuxuu ilaahay ku soo qondeeyo, wixii ilaahay ku siiha gudbin, waxaad noqonaysaa ummadda qofka ugu taajirsan. taajir ha u malayn kan xoolaha badan, taajir ha u malayn hantiilaha, taajir ha u malayn gisaca ee niidada gabdhaha ay ugu jiraan ee dahabka. saasaa loo riixaa, waa niidaha sanadkaas waa lagu soo daraa. ayadana korbii dhibaato kama baxna, waa lagu ciqaabaa dhici karta maalinta qiyaamo. gabar 2 jijin wadataa yaa rasuulka u timid, ma ka bixisay zakada? maya. ma ka farax gelin lahayd 2 la mid ah oo naar in Ilaahay kugu qurxiyo subxaanahu wa ta'ala? maanta 2 jijimood dahabad isku qurxisay maaho 2 naar hadduu Ilaahay kugu bedelo ka waran. kuweena kalmee naar ha la gaaro lagu leeyahay maanta anaa shaqaystay, ninkayga ii gaday, saasaa la yeelay. intay saa u soo bixisay turtay baa la yidhi gabadhi, saasay u fardhisay ayagoo dhan. markaasay rimaa qaadateed mayay tiri mar hadduu rasuulku saa yiri sallallahu alayhi wasallam. naar haddii la sheego wax ka orod badan ma jiro, janno haddii la sheegna wax uga soo degdeg badan ma jiro. wax nafta aan u rafaadino, waxaan wax dhibaato u galno, waxaan salaadaha noogu qaloobaan, waxa dumarkeena xijaabka uga tagaan, waxay dembi u galaan, intaasoo dhan waxa waaye nolol fiican ha la helo. laakiin nolol fiican saa ma aha, nolol hagaagsan ma aha. war xayaata saciida waa la baahdaa. xayaata saciida qiyaamu leyla la istaagaa. xayaata saciida waa la gaajoodaa. xayaata saciida dhulka la jiiftaa. xayaata saciida ilaahay la baryaa subxaanahu wa ta'ala. waad u jeedaa wanaxshuruhu yawma alqiyaamati a'ma. weli waa doodaya rabbi lima xashartani a'ma. insa binaadgu dhib badan ilaa maxaa indhoolnimo iigu keentay waqad kuntu basiira. maxaa loogu jawaabayaa kadalika atadka aayatuna fanasiitaha. waa munaasabkaaga, aayaadkayga soo kuma imaanin, ma hilmaamino. goormaad qur'aan aqrisay intaad adduun raadinaysay? goormaad qur'aan aqrisay intaad wax raadinaysay? goormaad qur'aan aqrisood rabbi caabuday? waa ma jirto. atadka aayaatuna fanasiitaha wakadalika alyawm tunsaa. saasaa lagu hilmaamaa maanta. xayaata fiican intaan raadinaynay yaa waxaan ku dhacnay cadow gacantiisa. xayaata fiican intaan raadinay yaa shaydaan gacantiisa ku dhacnay. xayaata fiican intaan raadinay badda ku dhex dhacnay. xayaata fiican intaan raadinay libax calooshiisa ku dhacnay. xayaata fiican intaan raadinaynay yaa dhib iyo rafaad la maray. waxa aad iyo aad u muhiim ah walaalayaal oo qofka ku saamayn kara inuu xayaato fiican helo waa inuu qanaaco yeeshaa. inta caloosha hooye aad ku jirtay soo moogid 4 waxyaabood in la qoray: risqigaaga, camalkaaga, ajashaada. wax la iswaalaanba jirinba, wax la iswaalaan jirin. saa darteed in yar oo ilaahayna sii raali aan ku noqono. maxaa kelifay maanta inay xumaantu badato? waxa waaye qanaaco la'aan. maxaa kelifay dhallinyaradan inay dhibaatoobaan? waa idinkoo qanaaco laydinka waayey, anoo kaa lay dhigin, anoo hotel hebel la igaga tumin, anoo intaas wax la ii samayn, heblaayo iyo heblaayo iyo heblaayo kale wixii loo sameeyey anoo lay samaynin. ma jirto. xaalku saa ma ah. Caaisha ma aragteen guurkeeda
maaragtay sidii loo guri geeyey biyo intay gacanta kusoo qaadato murumaan hooyadeed wejiga iga marisay tiri gacantaa laga qabto waaba laga galbiyeyba taajaa rabtiin xinno oo 24 maalmood soconayaad rabtiin waxaa rabtaan mataqaanaa waxyaabo kale taaj shaydaana rabtaan waxyaabo badan albaabka markii la geli lahaa wixii lagu geli lahaa xagee ka keenayaan dhalinyarada ma diidaysaan inay tahriib galaan idinkaas sabab u noqonaya inta badan ciyaal dhalinyaradu hadday dhibaatoobaan waayo mid baa kuu imaanaya walaalow tahriib baa rabaa inaan aado waa maqlay inuu dhib yahay ma jirta miya hal ayad xataa oo fasaxaysa ma jirta miya wax yaroo xadiis oo fasaxay maxaa dhacniyo niyo gabar baa jeclaa uu ku leeyahay gabadhii inaan dhistaan rabaa intaasaa laygu xujeeyey wixii ma haayo hadduusan haynin maxaa kalifa marka waxay kalifaysaa inuu badda isku daadiyo waxay kalifaysaa inuu libaax cuno waxay kalifaysaa inuu badda ku dhinto sida dhacday oo kale intaa muxuu u sameeyey lacag uu raadinoyaa yaa loo raadinaa inti yaa loo raadinaa adiga yaa loo raadinayaa gabdho haddii la yidhaahdo war wax allaala waxaad hesho adoo daacad ah ilaahi subxaana wa tacaala ka baqaya la imow aabbaad kala kaalmaysood kala hadasho asagana uusan ciyaal suuq kugu noqonin uu daacad yahay oo rabbi dartii wax u samaynayo xayaata dayib ah walaalayaal sida haddaad ku noolaanaysaan aan soo tilmaannay haddii kale waa lagaa cunaya asagoo dhanba saad u sugaysa dollar iyo dahab asagaad weynaysaa dahabna male dollarna male walaalna ma laha marka mashaakil aad iyo aad u weyn baa jira qanaacadu aad iyo aad ugu dadaala walaalayaal waa kanzi laa yanfid waa kayd aan dhammaanayn qofka ilaahay qanaaco qalbiga u geliyo rasuulku muxuu yidhi sal alla alayh wasalam qad aflaxa waa liibaanay qofkii islaamay ilaahayna diintii ku hanuuniyey risqigiisana kafaaf looga dhigay qud maalmeed waa qanaca kuna qanaaco qaatay ilaahayow raalli baan ku ahay buu yidhi ilaahayaa laga eed sheegan war dad ilaahay ka eed sheegtayaan noqon maanta ilahayaan ka eed sheeganoona wallaahi maanta ilahay baan dagaal ku haynaa subxaana wa tacaala wax uusanna siinin yaan rabnaa inaan qasab ku dhalino wuxuusan noo qorinaan rabnaa inaan xoog uga farmaroojino waxuu ilaahay noogu taligelnaa rabnaa inaan helno mana soconayso walaalayaal saa isgudada saan waxa laysku dhaamo intaan wiilasha inta farta haddii la tira koobo 2-3 baa xaas ah intiina meesha fadhisa haddii la koobana 3 baa ah mataqaanaa naag la qabo iyo 4 inna waa garoob inna waa gabdho inta loo badaya saasay noqonaysaa haddii saa ay ku socoto soo xaaraanta ma badanayso walaalayaal qofka bani aadamka shahwa ku abuuran wiilashan aad u jeedaan shahwaad baa ku abuuran gabadhu waxaa ku abuuran shahwaad saa darteed ilaahay ugu talagalay dariiq nadiif in lagu guto haddii xanibaadaan timaado haddii xayaato saciida loo arkay waxaan hadda tilmaannay wixiina laysku baahan yahay sow ma dhici karto meeshii rasuulku uu ku tilmaamay axadka meeshiisa daqal looga qori lahaa in dembi laysugu soo dhuunto inay macaasi timaado waa suuragal aad iyo aad bay u jirtaa waxaan maqalnay wiil baa gabarta u tegey wuxuu rabaa inuu guur xalaal ah oo nadiifa ka helo lacag bay ku xirtay habeenka dambe wuu tagaa lacagay ku xirtay mar kastoo la tago oo laysku tago oo la sheekaysto oo ninkan lacag lagu soo xiruu soo baxo marka la kala kaltay waa dhunkadaa marka la kala tegaayo asagana wuu shuminayaa ayaduna way shuminaysaa maxay diiday guur xalaal ah maxay diiday dhunkasho nadiif ah maxay diiday sheeko nadiif ah maxay ogolaatay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun waxa jira wax fiican ma aha dhalinyaro waa idinla socona waxaad samaysiin wiil kasta wuxuu sameeya waa la og yahay fasayara allahu camalakum wa rasuuluhu waalmu'minuun ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة حقا ولا يسكو علين دونا واحد صعدة وحكا بدلا وصاعدا إيا محاضرة إيا ندودا وحي كدن بيا وإحنا فرحت قريا هلا مغلا ولا ليال وريدينك لما يشي جوكتان كسوكعا ورلعد آخر أقاضا ميسان وقبري مركا لقو قلينا أيو هانتي إيدهب لقو قلين مايو والصالحة كالريبتاني منكا هيدين سو دعيانو كالريبتا عفيف نمو dhowr sanaan wanaagsan si xayaato saciida loo helo si xayaato tayiba loo helo 5 qol bay degan tahay mid kasta TV baa ku jira mid kasta computer yaala mid kasta waxa ku jira khad iyo waxyaabo kale mana la isla hadlo ma hadlo waa la isqabaa xayaatada saciidada raadinaysa marka xayaatada tayibka walaalayaal xayaatada qiimaha badan ee sharafta leh war xayaatada aad leedahay waxaan rabaa inaan helo aan gaaro amal fiican baa lagu helaa qofkii inuu amal wanaagsan samaysto man amila salihan
min dakarin aw unfa, qofkii camal fiican sameeya ama wiil ha ahaada buu dhahay ilaahay ama gabar ha ahaato mu'minna ay yihiin ay iimaan leeyihiin falanuxyiyannahu waa noolaynaynaa. nolol waa tana xayaatadee la noolaynayaa xayaatan tayiba, xayaata fiican buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala. bal tijaabiye bal inuu ilahay hadalkiisa been yahay inuu run yahay subxaana wa tacaala. tijaaba naga maqan xayaata tayib iimaan iyo camal saax la imow bal waxaan aad isku rijaynaysid oo dhibka iyo rafaadkii mashaakilka aad u marayso oo dhibka iyo rafaadkii waxyaabaha kale aad u gudbayso u marayso waxaad ku helaysaa iimaan iyo camal saalixa. iimaan iyo camal saacan haddaad isu kaalmaysataan wax idinka maqan ma laha. habeenkaad qadaanna ilaahay baad u taqaanaan ajir baa idin badan. habeenkaad quudataanna alxamdu baad ku seexanaysaan, ajarkii kii ka badan baad helaysaan. saxaabada gobol waa fahamteen oo waad aragteen. nin baa rasuulka u yimid, rasuulkii alloo majhuud baan ahay buu yidhi, meelaan seexdana ma haysto, waxaan cunana ma haysto, dhibaataa i haysataa. nebiga naftiisuu ka bilaabay sala allahu calayh wasalam. caashi gurigeeda maxaa yaala? soo fiiriya, biyo. saynad ha loo tago, biyo. umulmuminiin jawayda ha loo tago, biyo. sagaalka guri ee nebiga hal guri oo canjeero laga helaa la waayey sala allahu calayh wasalam. xayaata taybay ku nool yihiin, xayaata fiicanay ku nool yihiin. gabdhaha gabdha ka khayr badan ma imaanayaan? ma ka fiicnaan doontiin? ilma dahab maad dhali doontaan oo ma jirto maa. saa darteed baa waxaa la leeyahay biyo ma ahee rasuulka allah wax kaloo yaala ma laha. rasuulku waa loo soo laabtay, yaa marti sooraayo caawa kaxaynaya. nin saxaabada kamid aniga rasuulka ilaahayo guriis wax kuma oga, waa waday. naagtiisiiba u tegay, walaalay casho ma haysaa? nebiga martidiisaana la socotee. waxay tiri maya ilaa quut sibyaan, ciyaalka cuntadooda maahane. guriga ciyaalka boorashka cawaday cuni lahaayeen wax kale ma yaalo. xaalad xarj nolosha nagu dhoolaya fiiriya. walaalay wax ma haysaa? dagaal ma jiro, xoog ma laha. ayma dhahayso maxaa dhiibatay saaki? dumar qaarkood saas yaqaanaan. haddii ninkaaga oo nin la socda marti hadduu yimaado, walaalahay bariis wax ma haysaa? maxaa dhiibatay saaki? way kugu hor ceebaynaysaa. xataa intay istaagto oo tartiib ay wax qancisay wax hagaajiso waa loo baahnaa. mayay tiri gabadhan ilaa quud sibyaan ma ahee wax kale ma hayno. wuxuu yidhi facalilihim, ciyaalka hurdisii maa weeli finusta demi kisteerad haysan digsigaa ka soo dejinine noogu soo dhig. waa loo beenguuray. beenguur waa taqaani dhalinyarada ay tahaan gacantaa loo geliyaa bas si wax la cunaa la isaga dhigay. kistii meesha ku jirta martidii baa cuntay. qanaaca walaalayaal. iska daa iikee dadka yimidaa dhargaaya, ayagana baaha lagu seexana. subaxii markii la gaaray ee salaada subax uu aaday, nebigu markuu indhaha ka qaaday hadalka ugu horreey muxuu ahaa? wuu qoslay nebiga sal allahu calayh wasalam. markaasuu yidhi xalay ilaahay wuxuu ku qoslay waxaad martida ku samayseen. ilahay qosol ka keenay subxana wa tacaala. wuxuu ilaahay xalay la tacajubo uu la yaabay uu ku qoslay waxaad ku sancayseen martidaad ku samayseen. xayaata waa taasaa. jannaa lagu jiraa, qabrigaa loo waasicinaa. waa laga tegey adduunka, waa la aaday, waa laga tegey. annaga waxaan u malaynaa meesha in lagu waari doonaba. yaxsabu anna maalahu akhlada, in meesha la joogi doonayba nala tahayba, inaan meesha laga tegaynay markaa nala tahay. walaalayaal, waxa ugu muhiimsan oo xayaato saciida ah oo tayibo ah oo khayr badan oo iimaan leh lagu helaa qanaaca. qanaaca qalbigiina geliya. qanaaca maxaa loola jeedaa? inaad qanacdo waxa ilaahay ku siiya subxaana wa tacaala. wiilkaa ku qaba kuwigu ilaahay kuugu soo dhiibay inaad ku qanacdo. idinkana waxaan idin leeyahay ha qiyaanina hadday suuro gasho in la gursado. adoo kuu sabartay, waa gabdhaha waxay ka dhintaan oo waxyaabahay ka ashtakoodaan, waxyaabaha markasta ay leeyihin ragga ha nagala hadlo. waxay ka mid tahay way kuu sabirtay, joodari bay kula seexatay, 3 da-aad bay dhulka ku dhashay. mar allaala markay walacdo saytuunkay u baahneed waa u keeni weysay, tufaaxay ku walacday ma awoodi karteed, way kuugu sabartay. iyo ayadoo dhahaysay ku dhashay ayay dhashay. mar allaala markaa 2 kumi hesho waa ka kala qarsanaysaa. marka intuusan guriga imaaninba 10 kun gadaaluu gelina, 5 horuu gelinaya, inta wuxuu gelinayaa. marka qofta maxay noqonaysaa marka dhalinyaro? markaas waa daacadnimadu waa muhiim. ilaahay haddaad daacad isugu noqotaan daacad buu idin noqonayaa. ilaahay si fiican buu idin arsuqayaa. 2 qofood oo shariigto wax isku darsataa ilaahay 3 ku ah ogaada. hadduusan midkood kan kala qiyaanin buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam. haddaadan qiyaanin iidan aynan ku qiyaanin, war 2 qofood ilaahay ku dhex jira say xaaladooda noqonaysaa? tahriib ma u baahnaana? hanti ma u baahnaana? baahi maa qabanaysaa?
dhibaato mutaqaanaa ku dhacaysa waa ma jirto. saa darteed hadduusan midkoodkan kala qiyaanin, hadday dhacdo inuu midkoodka kala qiyaano, ilaah waa ka dhex baxa subxaana wa tacaala. adi iyo iiday noqonaysaa. kab ha kugu garaacdo, adna suun ku garaaca. ha ku disho, adina dil. ha ku qaniinto, adna feer. saasay soconaysaa. waayo ilaahayaa garabkiinay ka baxay subxaana wa tacaala. ilaahayaa wuxuu ka baxay garabkiina si ilaahay uusan garabkiina uga bixin. maxaa fiican marka kow inaan qanaaca ku dadaalno, iimaan iyo camal saalixa walaalayaal. wax yaree rabbi idin siiya raalli ku ahaada. saasaa qofka muslimka ku liibaanaa. wallaahi waxay kula mid noqonaysaa iska daa wax kale. waxa adduunka yaala adoo guriga laguu soo geliyey, hal aashuun iyo hal joodariya kuu yaala xaqiiqda marka la fiiriyo. laakiin soor ahaan marka la fiiriyo xagga alle, waxa adduunka yaaloo dhan gurigaa laguu soo geliyey. waa goormee? haddaad islaamnimo ku waabariisato, haddii ilaahay islaamnimo intuu kaa dhigay aad ku waabariisato. waa kow. midda labaadna ilaahay subxaana wa tacaala caafimaad jasadkaaga kuu siiyo, caafimaadaad qabtaa, islaamna waa tahay. midda saddexaadna amni aad ku darsato. midda afaraadna maalintaa waxaad cuni lahayd gurigaaga uu ku yaalo. maxay la mid tahay qofka afartaa la siiyo? wuxuu la mid yahay waxa adduunka yaala iyo darfihiisa qof guriga loo soo geliyey. boqorad baa tahay, baahi ay haysad leedahay. xagee baahi kaa haysaa? waa dhibaataysana daalida. xaggee ka dhibaataysan tahay? carab iyo cajam, yurub iyo maraykan iyo africa wax yaaloo dhan gurigay kuugu jiraan. ma ogid laakiin indha la-aanta dhaneeca la-aantaa keenta. war waa dareemaysaa in gurigaagu buuxo, waa dareemaysaa gurigaaga in laga dhargan yahay, waa dareemaysaa gurigaaga qiimo fiican inuu leeyahay. laakiin aaway kuwii arki lahaa? aaway gabdhihii arki lahaa? aaway gabdhihii fahmi lahaa? aaway gabdhihii dareemi lahaa in nimco ay taalo? war xale haddaad qiyaamuleyl tukatay oo rabbi bariday, oo salaad subax aad tukatay, oo ilaah subxaana wa tacaala aad baridoo tuugtay, oo ilaah intuu samo kugu soo bixiyey kitaabkaaga qur-aanka intaad qaadateed madarasada 3 aayadood ka soo dhegaysatay, gurigaaga aad ku soo laabatood ilmahaaga canjeero u dubatay, waxa kaa dhiman maxay yihiin? waxa kaa maqan maxaa waaye? wallaahi qof walba oo intaa ilaahay ku arsuqa oo gaajo sheegtaa, ilahay gaajada kama bixi subxaana wa tacaala. nin walba oo ilaahay inta iimaan ku arsuqay, ilaahay taaca ku arsuqay, zawjad saalixa ilaahay ugu deeqay, haddana hanqaltaag kale la yimaaday, haddana yidhi waa baahanahay, waa dhibaataysanahay, yurub baa rabaa inaan u tahriibo, intaa rabaa inaan aado, naftiisa halaagaa ku rida, qanaaca qalbigiisa laga waayo, wallaahi inuusan ilaahay baahi ka bixinayn. gaaja lagaa bixin maayo. saasaad isugu dheganaanaysiin. walaalayaal dad fiican hala noqdo. xayaata saciida, xayaata tayib ah maanta dad baa ku jira, waana lagu jiri jiray. dadaasa ka qadsan, war ha ka qadina. ninkan xayaat saciida wiil habeenkii ma seexdo, walwal buu ku jiraa. war si kasta hantaa u haysto, war si kasta xoolaha u lahaado, saasuu wadnihiisa u boodboodayaa. waa waxayna asagoo dhanba. gabadhuna waa la mid ayadana. haddaysan xayaato saciida aqoonin, xayaato saciidii qanaacan aysan qalbigeeda ku jirin, ayaduna saasoo kale noqonaysaa. maxay ku dagaalamaysaa? waxay ku dagaalamaysaa waxaan qiimo lahayn, waxay ku dagaalamaysaa waxaan faa'iido lahayn, waxay ku dagaalamaysaa wax inay calfan doontii in kale aan la ogeyn. war cibaadada xayaato saciida ah, war camalka saalixa xayaato saciida ah, war nolosha fiican waa nolosha noocaas ah. nolosha khayrka badan waa nolosha ilaahay uu kugu arsuqo diin iyo taacado markaa haystaa. saxaabadu waxay ku hormareen qanaaca walaalayaal. waxay sharaf ku gaareen waa qanaaco. waxay ilaahay ku hormarsiiyey waa qanaaco. qanaacadu waa shay aad iyo aad u qiimo badan. nebigu muxuu dhahay? laysa alghina can kathrati alcarab. xoolaha faraha badan taajirnimo ma aha. idiga waxaa u taqaanaa taajirnimo, laakiin ma aha. inama alghina غنى النفس. waa inay naftu qanacda marka hore, waa inay naftu dharagtaa. haddii kale waxaad noqonaysaa kaladii yakul walaa yashbac, ka cunayon dhargay. war fuusto ama digsi hoos ka daloola biyo ku shub maantao dhan, ku dhur maantao dhan. saasaan nahay maanta. war adduunkan waa laga iska tagaa. nimankii hore taabiciyiinta nin baa yidhi intuu soo qaatay intuu wax kala waayey muufa shari la dubay ama 3 maalmood taaloo qalashay, yaa wuxuu ku cabayaa biyo, wuu ku qadayna biyuu ku cabayaa muufadii. marna waa goosanaa, marna waa cabayaa biyihii. muxuu leeyahay? wallaahi nimcada, raaxada, xayaatada saciidada aan ku noolahay hadday madaxda ogaan lahaayeen lajaadaluuna bisayf, sayfay korka nooga jari lahaayeen, waa i dili lahaayeen. nimcadaan ku noolahay hadday ogaan lahaayeen. yuu tasaal soo qaatay madax mulugta buu yidhi, boqorada. nimcada aan ku jira hadday ogaan lahaayeen. nimcadu maxay noqotay? biyo iyo muufa qalayl ah. umaradu maxay haystaan?
waxaan dadku haysan. maxay cunaan waxaysan dadku cunin. maxaa loo kariyaa waxaysan dadku karsan karin. saa darteed ba wuxuu isku tilmaamay inuu ka saray xataa mulugta. wallaahi hadday ogaan lahaayeen nimcada aan ku jiray xayaatada fiican seefay qoorta iga goyn lahaayeen buu yidhi. xayaata saasay ahayd, nololtaasay ahayd. ninbaa taabiciinta ka mid ah zuhdiga marka laga hadlaayay wuxuu tilmaamay waxaana soo maray zaman dahabka iyo dhagaxa isku mid uu noo noqdo. dahabkii dhagaxa ulama jeeda dahab haddaan helo dhulkan uga tegayaa, laakiin hadda adoo socda haddii dhagax aad marto wax weyn uma waa ku istaagi waa maraysaa. saasoo kale haba qaata dahabkiiye wax weyn uma aha, wax weyn lama aha. dadaa mar allaala markii hantidana soo gasho ama lacag timaado dagaalku yimaadaa. in allaala inta dadku ay waxba haysanin waa la xasilan yahay. raga xaasiska isqaba fiiriya maalintii $100 ama $1,000 ay ciddu soo dirto markaasaa dagaalku yimaadaa. أنا سروال الربا أنا حجاب الربا أنا وحربا أنا وحربا دجالك ماشوا كبلوضا أبيه بقول أدرا ما هو يديه الله بقول أدرا دجالك يوحى أنت اللي هي سماها والحسيلية هاي باشرتي أنا قال مقنتها في عنتها إن يربن إليك برينا سبحانه وتعالى خيرك وناجي أنكو جارنو حياة السعيد ولا بكل دلالة هذا والله يوم ذكر وحكي بدلة جو أنكينا إذا كان سيدو كله أدو ربي ابن سبحانه وتعالى خير وناك ولا جاري دونا أدونك اسكول بينا أدونك اسكول بهارينينا أدونك على اسكول ما معها دارها dadkii dhintay dhulka dhistay dhulka hoostiisa ku jiraan. hadaa la socotaan hadii kale suuqa weyn ninkii dhisay dhulka hoostiisa ku jiraa. islaantii ugu hantida badneed ee xaafada deganay dhulka hoostiisa darad la galiyay. waxaasna waa la socotiin amalka saalixa xayaata saciida ah. ilaahay waxa idin bari inuu xaq idin waafajiyo, dhamaanteen inuu xaqna wada waafajiyo. ilaahay hanagu arzuqa xayaata saciida ah, xayaata fiican, xayaata raaxa leh, xayaata baraara leh, xayaata ilaahay jecel yahay. ya rabbi ka baryana subhanahu wa ta'ala waxaan adduunkeena disheeday dhulka irfaaqka nagu haayana ilaahay hanaga khafiifiyo. hamigeena kan ilaahay adduunka nooga madhigo, xaqa Allah na waafajiyo. inta xanuunsan Allah caafiyo, inta dhibaataysan dhibka Allah ka qaado, in Allah la inta khayrkii wanaaga jecel Allah waafajiyo, inta nacab Allah soo hanuuniyo. ilaahay shari shaytaan Allah naga qabto, amalkeena kii la aqbal Allah nooga dhigo. adduuni aakhir haday suka yimaadaan kuwa adduunka sii daaya oo talaaqo fura آخر قرق هذا الله نقدره. اللهم آمين اللهم آمين وبالله توفيق.